marka ugu horeysa waxaan rajaynayaa in madaxda siyaasaddu ay isu dul qaadato marka habeenadan oo kale la joogo waayo waynu leenahay haddaynu siyaasiyiin nahay madalo kale oo kaga habboon inaynu isugu jawaabno waxaan halkan ku taaganahay qadarin muunayn iyo xidhiidh qoto dheer oo ka dhaxeeyey adeerkay aabbahay iyo marxuun abwaan xasan qowdhan ilaahay saddexdoodaba naxariis janno allah ka waraabiya waxaan nasiib u helay inaan abwaan xasan qowdhan la sheekaysto safar la galo qofkuu ahaa iyo qiimuhuu lahaa halkan iyo mikrofoonkan kuma soo koobi karo dadkii aan adduunyada kula kulmay safar aanu ka gallay magaalada hargeysa oo aanu ku tagnay burco iyo burcoonu haddana ka soo noqono hargeysa aanu ku nimi iyo maalmihii burco aanu joognay waxaan bartay qofku xasan qowdhan ahaa ilaahayna waxaan uga baryayaa in ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo adeerkay iyo aabbahay waxay qaadeen heeso fara badan oo xasan qowdhan lahaa magacaas iyo taariikhdaas bay wada lahaayeen taariikhda iyo magaca ay wadaagayeenna waxaa u dheerayd walaalnimo xuduudaha dhaaftay oo gaadhsiisnayd in mar kastoo abwaanku i arko anigu aan qalbigiisa mushkilad ku noqdo oo aragga u i arkaa uu xasuusinayey raggay walaalo ahaayeen ee adduunyada isagu uu kaga dambeeyey iyaguna ka tegey ilaa mararka qaarkood markaan arko aan odhan jiray hadday ii suuro gelaysa inaan ka dhuunto inaan ka baydho si aanan markaa u qiiro gelin oonan qalbigiisa waxba u yeelin ilmo xasan oo dhan baan salaamayaa waxaanan ilaahay uga baryayaa magaca abbahood uga tegey ee qiimaha leh inay ilaaliyaan in sha allahu tacaala waxaanu ka soo jeednaa dad adduunyadan magac kaga tegay annagii iyaguba ilaalinta magacuna waa mas-uuliyad weyn weeye marka ilaahay iidankii waxaanay walaaladay uga baryayaa in alla u fudeediyo ma noqon karno qofafkay ahaayeen waalidkeen laakiin waxaynu suuro gelin karnaa inaynu ilaalino marka intaa laga yimaado waxaan halkan ku taaganahay allana igu simay inaan hargeysa ka ahaado maayar waxaan suuro gelin doonaa hadday reer somalilan rabaan inay wax ka bartaan anuu horaan u sheegay fanka soomaaliyeed oo dhammi soomaaliya hadday wax ka baranayso casharaa ugu sugan walaalnimada ka dhaxaysa abwaanada soomaaliyeed iyo fanaaniinta soomaaliyeed ee aan qabiilka ku dhisnayn ee ku dhisan isxidhiidhinta iyo ubadkoodu inay walaala yihiin jacaylka ka dhex jira fanaaniinta somalilan iyo soomaaliyeed iyo kuwa geeska afrika afka soomaaliya ku hadlaaba haddii jacaylka aynu suuro gelinno waynu qurux badnaan layn waxaa alla igu simay inaan caawa halkan joogo anigoo maayara magaalada hargeysana waxay ahayd magaaladii hoygii fanka soomaaliyeed bay ahayd in sha allahu tacaala haddaan xitaa alla nagu simin inaan annagu dhisno waxaan suuro gelin doonaa dhulkii laga dhisi lahaa guryihii ay degi lahaayeen fanaaniinta reer somalilan iyo kuwa soomaaliyeedba
waxaana TV-ga ka arki doontaan insha Allah ta'ala annagoo halka calaamadinayna oo magaceeda ku qorayna sidaas aanay computerka ugu jiri doontaa in qalcadaas ama meeshaas ay tahay meeshii laga dhisi lahaa tiyaatarkii iyo guryihii fanaaniintu ay degi lahaayeen Hargeysa iyo fanka lama kala saari karo qofka isku daya inuu kala saaraana waxa weeye magaca Hargeysa ayuu badgoynaya weey marka haday Hargeysa muddo aanay ahayn oo la doonay in laga qaado inay tahay hoygii fanka waxaan ku dadaalaynaa intaanu joogno in lagu soo celiyo magaca qiimaha leh ay lahayd waxaase la rabaa in laga wada shaqeeyo insha Allah ta'ala waynu guuleysan doonaa waynu midoobi doonaa dalkeena waa horumarsan doonaa magaaladeena waa dhisan doonaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh